waxaan joognaa duleedka magaalada Muqdisho waxaan rabaa hadda ka horna halkaan oo nimid anoo ka hadlaayay dad soo dhiibay daawo dhacday soo dhiibay waxaan rabaa inaan ku celiyo hadalkii aan hadda ka hor idin ciddii wax dhacay noo soo dhiibta cadow waay adoo isla u naxariiso ee gargaar hadda wax dhacay noo soo dhiibto ee ummadii shabaabkuna qarxinayeen balaaye ay la daba joogeen aduguna aad daawo dhacda soo dhiibtaahi ilaahayna waa kula xisaabtamaya gobolka Banaadir iyo booliiskiisuna quality control ay kula daba joogayaan waxaan rabaa inaan mahad gaar ah u celiyo taliyaha ciidanka booliiska ee dekedda Muqdisho kaalintii ay qaateen sidoo kale waaxda caafimaadka dawladda hoose iyana kaalintii qaadatay ee ahayd in waxaan gadaashayda ka holcaya ummadda laga badbaadiyo aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan carraba ku dhufto cidda soo dhiibtay daawadan waxaa soo dhiibay oo ummaddan dhibaataysan u soo dhiibay wax dhacay u soo dhiibay hay'adda la yiraahdo One Life Global Welfare Charity noo naxariisaba islahaayeen noomay naxariisana wayna dhibaatay cod dheer ku leeyahay eedaha loo soo dhiibay daaf iyo manhal daaf waa hay'ad wax loo soo dhiibaye manhalna waxaan leeyahay dambiga qaybad ka tii ummaddan masaakiinta ha dhibaataynayseen oo aad rabteen inaad wax dhacay siisaan waan la hadlay guddoomiyihii manhal wuxuu igu yidhi way nagu khayaaneen bow haddii adinka laydinku khayaanay inaad mar hore sheegtaan bay ahayd si ummaddan aysan wax dhacay u soo gaadhin aad baan rabaa inaan uga mahad celiyo booliiska iyo gobolka iyo maxkamaddaba iyo xeelaalinta guud dhammaan inaad ummadda ka ilaalisaan cadowga noocan oo kale ah sidoo kale waxaa igu maqaalaa warqaddana ku qoran in Kuwait iyana manhal looga soo dhiibay wax dhacay oo ay ka mid tahay waxyaabaha la gubay reer Kuwaidow iyo reer Ingiriisow naga daaya waxaad nasiinaysaan dad wax dhacana nasiinaysaan oo ilaahay ka baqa bilis hay'adda daaf oo curyaamiin ah ayaad ku khayaanteen inaad wax dhacay u soo dhiibtaan waxaan cod dheer ku leeyahay ciddii wax dhacay noo soo dhiibta cadow ummadda Soomaaliyeed anoo fulinaya amarkii guddoomiyaha gobolka Banaadir waxaan leeyahay ninka hadda halkan ku qoran ee wakiilka u ah manhal ee magaciisa la yiraahdo Maxamed Cali Xasan waxaan leenahay ummadda ka daayay dhibaatada ka daayay oo ummadda waxa dhacay ka daayay oo ummaddan dhibaato waxa ugu filan shabaab iyo balaaye iyo dhibe iyo abaar iyo waxa ugu filanee waxa dhacay ka daaya oo ilaahay idin untay ka baqa waaxda caafimaadkuna sharaf iyo qiimo ay leedahay dekedda Muqdishona aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa booliiskeeda kaalintay qaateen maada saxaafadduna waa mahadsan